الله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. وزارة كحوجينكا حكومة فدرالك الصومالية بدون كحوجينكا قبلك أجازمها جود وزارة waxbarashada أجازمياشا وأحياها والوضعنada وزارة waxbarashada والوضعنada أجازمها waxbarashada قبلك بنادر والوضعنada وزارة waxbarashada ميدياها شعب الصومالي أرضي والدين تودا لما وايد سلامي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعمان تفرحنا إن دافرنا أما أن بلاونا إتحان كي فسد كلامي تمنات أرضي ذا الدكسية السراء ضمن كويدل هذه أدبا وفرح سنة هاي كديب سنة وحبرشة وآد لو سود دالي ما أنت إنان امتحانkaas ardayda ay galayaan aad iyo aad baan ugu faraxsanahay. imtixaanka waxa lagu gali doonaa 121 goobood marka laga soo bilaabo magaalada Gaalkacyo ilaa Dhobley ilaa Belada Xaawo. waxaan u fadhiisan doontaa gobolada arday tiradooda lagu qiyaasay 36143. dawladda Puntland ayada hore ayay u qaaday imtixaankii oo 5000 iyo dheeraad ayaa dugsiga sare u fadhiisatay. waxaad dareemaysaan sanadba sanadka ka dambeeya in ardayda imtixaan ku fadhiisanaysa ay kordhayaan. waa ilaahay mahadaasna waxaa iskale waalidiinta iyo shacabka Soomaaliyeed oo fahmay tacliinta qiimaha ay leedahay ardadoodan iskuulka u diray. anaga ka wasaarad ahaan waxaan dadaal ugu jirnaa in la kordhiyo ardayda iskuulka aadaysa si wadanka tacliintiisa loo horumariyo tiro ahaan iyo tayo ahaanba si aan ula tartamno wadamada geeska wadamada bariga Afrika iskula naalno iyo caalamka intiisa kalaba. waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa ardayda soo dadaashay guulna u rajaynayaa waalidiintoodana u mahadcelinayaa juhdiga ay ku bixiyeen. waxaan kale u mahadcelinayaa macallimiintii iyo maamulayaashii waqtiga badan ku bixiyay inay ardaydan heerkan soo gaaraan. waxaan kale u mahadcelinayaa wasaaradaha maamul goboleedyada iyo gobolka Banaadir oo iyagana aad iyo aad intii aan wada shaqeynayna aad isu xilqaamay in arrintaanay sidaan maanta soo gaarto. waxaa kale oo aan aad ugu mahadcelinayaa ciidamada booliska Soomaaliyeed oo sanadkii 7aad dul taagan imtixaanka nabadgelyadiisana ilaalinayaan. waxaan kaloo hadda u mahadcelinayaa kormeerayaasha iyo maamulayaasha iyo ii sheeg macallimiinta ardayda waardiyeynaysa kulligiin guul ayaan idin rajaynayaa. ardayda waxaan kula dardaarmaynaa inay isdejiyaan ay si degan imtixaanka u galaan ay waxay soo akhristeen u baan lagu imtixaamayaa. maamulayaasha iyo macallimiinta waa dardaaranka ugu xoog badan dadka la rabo dadkan u jeedinayno. waxa weeye mustaqbalkii ummadda ayaa gacanta ku haysaan, ardayda Soomaaliyeed ayaa gacanta ku haysaan. waxaan idin kula dardaarmaynaa in si cadaalad ah oo aan lahayn laab iyo isdaba marin aad ii sheeg arrintaas aad oga soo dhalaashaan. alqish man qashana falaysa minna nabi alayhi salatu wasalam. amaana haysan amaanadaas si wanaagsan ay u gudataan. horena waa idin kula dardaaranay mar labaadna waa idin dardaaranay. maantana waxa waaye maalintaas anaga keliyaan markaan idin dardaarmaynay laakiin maanta meediyaan dardaaranka aan idin marinaynaa. macallinka ardayda qishka u fasaxa waxa weeye ardaygii dadaalay oo habeenkii soo jeeday oo ii sheeg intaas oo juhdi soo bixi ayuu cadow ku yahay. ardaygaas waxa laga yaabaa inta qalqalo wuxuu qorab inuu garan waayo. marka waxaan kula dardaarmaynaa inaad adkaysaan si cadaalad ah si ardadan aysan markii imtixaanka la saxo nin walbaba wixii juhdigu u geliyay uu helo. warka waa idinku badiyay dhammaan ardayda Soomaaliyeed iyo waalidiintooda guul baan u rajaynayaa iyo macallimiintooda.